بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iga raali noqda waan ordayaa marka muuqaalka uu boodboodaya raali noqda. casharka maanta xarun ay noo soo diyaar garaysay waxa weeye kalsoonida. casharkan wuxuu kaloo kaa caawinayaa dooda. haddii tusaale kale imika aad igu tirahdo waad foolxun tahay, aan kugu idhahdo waad mahadsan tahay, maxay kuu sheegaysaa adiga? haddii aan si kale kuugu jawaabo sidaa aad igu tiri aad foolxun tahay, aan kugu idhahdo war adigaa foolxumay ey baa tahay aan ku caayo adigana, maxay taasina kuu sheegaysaa? adiga war kuuma hayo, laakiin waxaan aqaanaa bini aadanka. marka aan naftayda ka bilaabo taan toddomaan ku bilaabaya. haddii aad igu tirado foolxun tahay aan ku caayo, aad baad foolxun tahay ey baa tahay caynkana tahay afkaaga hagaajiso, qof weyn baa tahay, waa qof aan isku kalsoonayn. anaan isku kalsoonayn haddii aad waayo laba wax kow ma ogi cid aan ahay, ma aqaan shakhsiyadeyda inaan foolxunahay. haddaan foolxunahayna aan ku faraxsanahay waa alxamdulilah, haddaan qurux badanayna aan ku faraxsanahay alxamdulilah. ta labaadna inaan ku caayo maaha, xitaa haddii aan foolxunahay inaan ku caayo maaha, waayo akhlaaqdayda ayay wax ka sheegaysaa. kalsoonideyda oo keliya maaha, asluubteyda inaan kugu idhahdo ayaad mahadsan tahay, inaan sidaadoo kala noqdo maaha. marka maxay kalsoonida iyo tan iska galay? waxaa iska galay haddii lagu caayo aad is og tahay ciddaad tahay, kalsoonidaadu ay dhisan tahay. kalsoonida say ku dhisan tahay waxaad ogtahay waxaad tahay, baad ogtahay shakhsiyadaada, waad ku faraxsan tahay waxaa laaliya waxaad tahayba. ma boodaysid, ma caaytamaysid, waxaad u jawaabaysaa sidii qof macquula, qof caaqila. marka kalsoonidu waxay u baahan tahay inaad taqaano ciddaad tahay. ciddaad tahay kama hadlayo qabiilkaaga, ciddaad kama hadlayo magacayga, kama hadlayo in hebel, kama hadlayo shaqadaada, kama hadlayo. waayo waxaa laynaga dhaadhiciyay waxaad tahay shaqadaad qabato, waxaasi waa iska khiyaali. markaad keligaa tahay waxaad isu haysato, taas ayaynu baahnay inuu qofku isla shiro, telefoonka meel dhigo, uu isfarto isagu. taas ayay kalsoonida ku dhismaysaa. markaad naftaada ku faraxsan tahay, ama gaabnow, ama dheerow, ama caataahow, ama buurnow, ama madow ama madow ahaw, ama casaan ahaw, aad ku faraxsan tahay naftaada, aad tiraa alxamdulilah ilaahay baa i siiyey. adduunkanna waxaan dadkunbaa isku qiimeeye, waxaan dadkunbaa sheegay, xitaa layskuma qiimeeyo. qofku markuu ku dooro waxba kuguma qiimeeyo. waxaa haddii taasi ay run noqotay, haddii aynu raacno dadka waxay yidhaahdaan, afkooda ka yidhaahdaan mabaynaan meel babaynaan gaarnay. imise dumaraa ka odhanaya nin gaaban ma jeclin, imise dumaraa nin gaaban qabta, alla waan jecelahay ninkayga, laakiin berigii hore ragga gaagaaban maan jeclayn. imise nina ayaa ku odhanaya gabadh caataa ayaan u baahanahay, imise ninaa la qaba gabadh hilib leh. waa badan tahay, waayo dadku waxay afka ka yidhaahdaanna waa been, qalbigooduna waa mid kale. marka waxaan doonaya aad kalsoonidaada dhisato. kalsoonidaada aad isku dhisanayso waxa wey inaad is ogaato, aad iska dayso kubaddan iyo warkaad daawanayso, telefoonka meel dhigto oo aad adigu isla shirto keligaa. aad tiraa wallaahi haa alxamdulilah baan taaganaya, sooma nooli haa, qof iga qurax adduunka ma jiro. qof haddii caayana waxaan leeyahay waad mahadsantahay, halkaasaan ku dhaafaya, bartaa kaga tag waxaa qofka ku dhaaf. waayo kalsoonida xitaa qofka ku caayay markaad tirahdo waad mahadsan tahay, isagaa qajilaya. qofkaasi hadduu damiir leeyahy isagaa qajilaya. marka kalsoonidu waxay ku timaado qofku inuu is yaqaano, shaqsinimadiisa yaqaano. cayduna waxba kaama dhimayso. hana caytamin weligaa, waa ceeb. casharka soo socdaana waxa wey cayda ceeb weeye. qofka caytama waa qof maskax yar.